musharax xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Aadan Jeelle ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Huurshe ee waqooyiga gobolka Galgaduud. musharax Maxamed Aadan Jeelle oo u tartamaya kursiga beesha Salmaan Cabdulle oo kamid ah 12 beelood ee deegaanada Galmudug sumadiisuna tahay 104 haatan uu ku fadhiyo xildhibaan Mahad Cabdulle Cawad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya waxa magaalada Huurshe ee waqooyiga gobolka Galgaduud ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Galmudug ismada dhaqanka Huurshe dhalinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Maxamed Aadan Jeelle musharax xildhibaan oo warbaahinta la hadlay soo dhaweyn kadib ayaa bulshada reer Huurshe uga mahad celiyay soo dhaweyntii diiranad ay u sameeyeen waxa uuna sidoo kale faahfaahiyay ujeedka socdaalkiisa. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad dhammaantiin ardayda, dhalinyarada, haweenka, ragga, madaxda reer Huurshe inaad maanta u soo baxdeen inaad halka igu soo dhaweysaan. aad bay shucuurtayda u kicisay arrintaasi. waan idiin mahad celinayaa. haddii Ilaahay kuu roon yahayna waxaan rabaa in aan mar kale anigoo magaciina ku hadlaya waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo sida qiirada leh, walaalnimada leh, dadnimada leh aad iigu soo dhaweyseen magaaladiina. insha Allah anna waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inaan noqdo ninkii abaalkaas idin gudi lahaa. waa isla joognaa, waa wada sheekaysanaynaa. dhalinyarada gooni baan oo la hadlayaa, haweenka gooni baan oo la hadlayaa, madaxda magaalada sidoo kale, culimada gooni baan oo la hadlayaa. marka waqti dheer baad meeshan taagneedeen oo aad isugayseen. haddii aan in yar idiin soo koobo ujeeddada safarkayga maanta halkan aan kugu imid, marka hore waxa weeyaan in aan isbaranno oo aan dadka iska baranno. marka labaad in aan si buuxda taageero idiin weydiisto inaad igu taageertaan xilkaas aan raadinayo ee ah in aan ahay musharax kursiga 104 ee golaha shacabka. teeda kale anoo ka faa'iidaysanayo mashruuca kan waxaan rabaa in aan baaq u diro dawladda. waxaan soo maray dhul dheer oo aad u fog oo dhirtu aad iyo aad u qaawan tahay, iyadoo ay sababtu tahay ayax ku soo habsaday carrigan. waxaan ka codsanayaa hay-adaha caalamiga ah, kuwa la dagaala ayaxa. waxaan ka codsanayaa dawladda federaalka. waxaan ka codsanayaa in si degdeg ah loola soo gaaro taageero la dagaalanka ayaxa oo xaalufiyey mirihii iyo dhirtii iyo daaqii ay xooluhu cuni lahaayeen. arrintaasina insha Allah waxaan rabaa in aan dawladda dhankeedii aan xoogga saaro sida arrimaha wax looga qaban lahaa. waa idin salaamay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد آدن جيله ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Huurshe ee waqooyiga gobolka Galgaduud waxa uu kulamo la qaadan doonaa isimada dhaqanka, dhalinyarada iyo ururada bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan. Cabdi Fataax Yuusuf Maxamuud, warbaahinta Shabeelle, deegaanka Huurshe ee waqooyiga gobolka Galgaduud.